Obvious outswinger. Maguire, Kane! Rifles it into the... Because City are on a different plane. De Bruyne. Curry, back by McTominay! Red letter day! He'll get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores! De Bruyne! Benny, hit by Saka, what a goal! What a wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in! asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waa mar kale iyo wararkii cayaaraha oo dhow idinka soo gudbino channelka gacaltooye show. waxaanu idiin soo gudbin doonaa kooxda Manchester United oo codsi u dirsatay naadiga Arsenal si ay u qaadato laacib Thomas Partey. waxaa kaloo aad ku maqli doontaan kooxda Bayern Munich oo iyaduna si aan la filaynin u soo dhex gashay kooxda Chelsea kadib markii naadiga Arsenal oo gorgortan uu kala dhaxeeyay ay ka baxday, taasoo ay ku doonayaan ciyaaryahan Kasede. qodobada iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan. waa tahay aan ku bilownay, waa war degdeg ah. kooxda Man U ayaa codsi u dirsatay naadiga Arsenal si ay u qaadato laacibka Thomas Partey ugana dheera khadka dhexe Arsenal. Partey ayaa la fasaxay kadib markii la keensaday ciyaaryahanka Declan Rice. codsigan ayaa imaanaya in la ogolaado fasaxiisa ciyaaryahankan khadka dhexe una dhashay wadanka Ghana. sidoo kale waxa uu kooxda Arsenal uga dheeli jiray difaaca iyo dhexda, waana ciyaaryahan naadiga Arsenal mararka qaar ama sida caadiga ahaydba difaaca iyo khadka dhexe aad uga dhex muuqda. naadiga Bayern Munich ayaa dalaq soo tiri baa layidhi wadahadal u dhexeeyey Arsenal iyo Chelsea oo u ahaa gorgortan uga socday ciyaaryahanka lagu magacaabo Kasede oo u ciyaara naadiga Brighton ee wadanka Ingiriiska ka dhisan. Kasede ayaa wararku ay sheegayaan in wadahadalkoodu uu meesha uu ku dhammaaday, laakiinse Chelsea hadda ay wada hadlayaan, balse si lama filaan ah ay kooxda Bayern Munich ee wadanka Jarmalka ay ula soo xiriirtay laacibkani. ciyaaryahan Kasede ayaa isagu weli jecel inuu ka sii ciyaaro naadiga EPL, balse la ogaan doonay meesha uu ku dambeeyo. daawadayaal waxaad nagala socotaan janalka gacaltooye show. Liverpool ayaa si lacag la'aan ah ugu wareegay wadanka Sacuudiga Robert Firmino. kooxdaasi Al Ahly ee boqortooyada Sacuudiga. Robert Firmino ayaa laga sugayaa kooxda Al Ahly halka ay isla gaaraan. markana shil argagax leh ayaa sababay dhimashada mulkulihii koox caan ahayd. ninka lagu magacaabo John Pearson ayaa geeridiisa looga murugoonayaa wadanka Ingiriiska kadib markii ay boolisku xaqiijiyeen inuu ku dhintay shil naxdin leh oo uu ku galay waqti dambe oo maalintii shalay ahayd gobolka Massachusetts ee wadanka Mareykanka, waxaana in waqti yar lagu tacaalayay xaaladiisa caafimaad halkaasi, balse ugu dambeyntii uu geeriyooday. John Pearson ayaa da'diisu ay ahayd 70 jir. waxa uu ahaa ganacsade u dhashay Mareykanka oo iska lahaa kooxda lagu magacaabo Millwall ee heerka labaad ee Ingiriiska, laakiin ka mid ah naadiyada faca weyn ee caanka ka ah dalkaasi Ingiriiska. booliska ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in John uu markaasi galay shil naxdin leh oo ay u qaadeen cisbitaalka, laakiinse uu geeriyooday. Millwall ayaa dhinaceeda ka xaqiijisay in mulkiilaheedii uu ku dhintay shil naxdin leh isaga oo ka tegay 3 caruur oo kala ah Jennifer, James iyo Elizabeth, iyo weliba xaaskiisa oo lagu magacaabo Amy. daawadayaal intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa wararka ciyaaraha aan idinka soo gudbinay channelka gacaltooye show. intaanu barnaamijka lamid ah ku kulmi doona saas iyo nabadgelyo, balse ha ilaabina in aad subscribe iyo like iyo share aad dabcan aad sii saartaan si wararkan iyo kuwa kaloo dheeraada aad halkan uga heshaan.